بسم الله الرحمن الرحيم horta waxaan u hambalyeynaya aan u mahad celinayaa ugu horeyn ra'iisul wasaaraha oo hawshan runtii isu xil saaray iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka iyo guddiga halkan ku yaala iyo oo ay ku jiraan wasaaradaha kala qaybaha kala duwan iyo dhalinyarada halkan fadhida oo runtii subax walba isku howla sidii ay dib habeyntaan ay u noqon lahayd mid guul successful ah runtii aad baan kulligiin idinku hambalyeynaya anigu runtii waxaan ogaaday in ciidamadu aysan fayl lahayn markii aan tegay wasaaradda gaashaandhigga markii aan iri taliyaashii ciidanka hogaaminaya feelashin ii keena aysan feelo lahayn waan iri askarta ka shaqeysa xafiiska personaalka ama xafiiska ciidanka taliyahii joogay feelkaaga ii keen uusan feyl lahayn yaa waxay caddaatay in loo baahan yahay dib habeyntan iyo reformkan oo degdeg in loo sameeyo marka runtii aad iyo aad yaan ra'iisul wasaaraha uga mahad celinayaa siduu isugu xil saaray uu guddigan u sameeyey haddana aad sheegaysaan tirada ciidanka in uu ku dhow yahay dhammaad tirakoobkooda oo electronic ah iyo galkan marka waxaa yaab leh haddii aan horey loo haynin gal uu ku yaallo qofka sawirkiisa magaciisa oo buuxa garaadihiisa meesha uu joogo haddii looga baahan yahay inuu howlgalo dekreetada uu haysto mid sax ah miyaa mala ganaaxay shaqo wanaagsan ma qabtay oo runtii oo abaalmarin ah dee qof aan fayl lahayn see loo odhan karaa ciidan uu ka tirsan yahay ya runtii waxaad gaarteen guulo runtii taariikhi ah yaad gaarteen waana meesha ay ka bilaabanayso dowladnimadeenna iyo la dagaalanka musuqmaasuqa maxaa yeelay see mushaar loo bixiyaa haddii ciidankii aan la garanayn haddana waa ku mahadsan yihiin saraakiishii nagala qayb gashay iyo askartiiba inay ogolaadaan in la maro sida saxa ah oo askariga dhabta ah iyo meesha uu joogo iyo garaadihiisa in la hayo si aan u ogaano yaa shaqayn kara oo diyaar ah iyo yaa howlgab ah iyo yaa maxaan ku rahdaa curyaan ah oo u baahan in maaragtay la daryeelo marka runtii waa horumar weyn oo la gaaray insha allahna aan xoojinno hala adkeeyo oo hala ilaaliyo systemka hala ilaaliyo maxaa yeele hadda systemkii la dhisay haddii la dayaco oo wax halaabaan wixii la qabtay waxaa weeye waa hal bacaad lagu lisay marka in la ilaaliyo oo tiim adag loo sameeyo oo ka shaqeeya tan labaadna saa sheegteen dee waxaa noo bilaawday e-government electronic government oo qofka markuu gacanta saaro la og yahay xaaladda uu ku jiro iyo meesha uu joogo iyo hadduu fasax qabo saa sheegteen hadduu meel aadayo inuu fasax qabo hadduusan fasax qabin hadduu dee meelahaas ka socdo ma nin soo goostayba ya mise waa nin shaqo u socda marka runtii waa horumar aan gaarnay aan xoojinno horumarka xukuumadda hadda jirta maxamed cabdulaahi farmaajo uu hogaaminayo inay la soo baxday 3 sano oo ay jirtay inay isku dayday inay ka leexato dariiqii dadkan ku heshiiyey oo ugu horraysa inay la dagaalanto nidaamkii federaaleynta ahaa dalka oo ay dhammaan qawaaniintii iyo waxyaabihii u baahnaa in laga wada tashado ee hareer martay oo ay dhegaha ka furaysatay in ay ka garnaqasato ama ka wada hadasho sidii khayraadka dalka loo qaybsan lahaa sidii nidaamka awoodaha loo maarayn lahaa sidii dadka mas-uuliyiinta ah ee maamulada xukuma la isugu soo dhoweyn lahaa sidii midnimada loo ilaalin lahaa taa waxa ay ku beddeshay inay howl ka dhigato inay la dagaalanto maamulada dalka waxaad og tihiin wixii ka dhacay maamulada dalku aan rabin inaan aad ugu noqnoqdo waxyaabaha hadda u dambeeya oo socdana dadka soomaaliyeed ay ka dheragsan yihiin waxaad og tihiin ciidamadii loogu talagalay in lagula dagaalamo argagixisada iyo nabaddiidka iyo dadka aan doonayn dowladnimadii xasiloonnida ee dalalka ay noo tababareen in meelihii degganaa oo xasiloonaa ee lagu qabsanayo waxaa ka socda gobolka gedo oo ah magaalooyin xasiloon oo shabaabka ka xoraysnaa magaalooyinka doolow beled xaawo luuq in ciidamo lagu daadguraynayo ciidamo la yidhaahda haramcad
waxyaabaha yaab kale waxa weeye haddii harabcad loogu talagalay inuu ariga reeraha uu dawacada cunaysa ka cunana oo shabaab loogu talagalay tale ahaan lahayd laakiin harabcad xoolihii iyo dadkii cunaaya runtii waa arrin aan fiicnayn suurad xun ka dhalinaysa soomaalida dhexdeeda u abuuraysa nidaam dadka soomaaliyeed ay ka soo doogayeen oo ah in qodh caaraddiisa la isku maamulo arrimaha noocaasa runtii waxay walaac gelinaysaa puntland sida hadda wax ku socdaan hadday ku sii socdaan saa la socotiin markii la doortay madaxweynaha ballanqaadyo fara badan ayuu ka sameeyey baarlamaanka ma raba in aan ku qiimeeyo ballanqaadyahaas wax sababtoo ah waxaan u arkaa inay ahaayeen ballanqaadyo aan macno weyn ku fadhinin arrimaha Soomaaliya ee murugsanna wax ka qabanaya inaysan ahayna ii muuqday maalintaas oo ballan qaadayay oo ahayd jidadka ma xiri doono safarro ma aadi doono waxay ma aragtay qofkii qarax soo sheegay lacag 100 kun siinaya dibaddan u dhoofinaya guryaha duma waa dhisaya xildhibaanada guryaha inay dhisaya wax noocaas aniga macno weyn ma sameynayaan wax aan wax ku qiimeynayana runtii ma aha ama maanta qiimeynteena qaybka ma aha hal wax un baan ballanqaadkiisa soo qaadanaya inuu yiri waxaan noqonayaa nabadoon dalka aan madaxweyne u ahayn laakiin nabadoon u ah taas uu baan ka soo qaadanaya wixii ballanqaad uu sameeyay anigu waxaan halbeeg aan wax ku eegayno ama aan wax ku qiimeynayna xisbi ahaan ama shakhsi ahaanba ma aha waxyaalaha uu madaxweynaha ballan qaaday midna kuma jirto waana ku celinayaa anaga markii horeba nooma ahayn wax lagu qiimeyn kara ama mushkilada Soomaaliya lagu furdaami kara ma ahayn laakiin waxaan wax ku qiimeynaynaa waxyaalaha dalka u yaalay qarankan culaysyada u yaalay maxaa laga xaliyay maxaa laga qabtay waa mid aan wax ku qiimeynayno madaxweynaha markuu talada iimaanay wuxuu u yimid dalka oo 5 maamul goboleed leh 5taas maamul goboleedna tala wadaag ay leeyihiin masiirka dalka iyo ay ka talintiisana ay ka tashadaan wuxuu u yimid dadka Soomaaliyeed oo ka soo kabanaya colaado ragaadiyay dagaalo ahli ah ama kuwa diinada aadaan ama kuwa qabiilada aadaan intaba ay ragaadiyeen walina qaarkood ay socdaan oo kuwii shabaabka ay si xoog u socdaan dalka u yimid ka soo kabashadaas waxay keentay dadka Soomaaliyeed inay dhistaan wax la yiraahdo ra'samaalkoodu bulsho inuu si tartiib ah oo u soo kabto oo ay timaado dadku inay is aaminaan ay kalsoonida ay si tartiib u soo noqoto kalsoonida dadka lagu qanco dawladnimada inay tahay waxa dalkan ummadan jiritaankeeda badbaadi kara inay tahay dawladnimada inaan adduunkan globalka isku xiran sida kaliya ugu noolaa karnada inay tahay inaan noqono qaran midaysan dastuur leh ciidan qaran leh iska madax baneeya ciidamada ajnabiga ee dalka jooga ay ka tagaan ayaga dawladnimadoodii qarnimadooda ay soo cishtaan saasay dalka Soomaaliyeed ay ku taamayeen labada aqal gudoomiyaha doorashooyinka madax bannaan gudoomiyaha maxkamadda gobolka iyo gudoomiyaha maxkamadda racfaanka taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo sareeyaasha garsoorayaasha ka kala socda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadan bahda saxaafadda kulli waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaah baa mahad leh ilaahayay na siiyey fursaddan aan maanta isugu imaano halkan isugu nimid oo ay tahay shir sanadeedkii labaad ee garsoorka Soomaaliyeed ee lagu qabto magaalada Muqdisho waxaan rabaa inaan u mahad celiyo gudoomiyaha maxkamadda sare iyo howlwadeennada maxkamadda sida wanaagsan ay runtii oo quruxda badan ee noogu soo qaban qaabiyeen munaasabadan waxaan rabaa inaan halkan ka iraahdo garsoorayaasha xaqiiqatan ama cadaaladda waxa weeye aasaaska nabadda weeye aasaaska nabadda iyo xasiloonida waxa weeye waa cadaaladda ama rule of law wax la yiraahdo oo ku dhisan shuruuc kala dambeyn iyo nidaam nabadda la'aanteeda
waxa weeye garsoore ma jiri karo mana shaqayn karo nabadda la'aanteeda hay-adaha amniga ma jiri karaan garsooruhu iyo hay-adaha amnigaba iyagaa gacanta ku haya nabadda haddii garsooruhu uu ka tago taas mabaadidaas uu ka tago xaqiiqatan haddee nabad lama heli karo markii laba qof oo midna dhib sheeganayo oo dhiban yahay midna wax dhibay hadduusan u xaqsoori karin u garqaadi karin oo laga yaabo inuu garta siiyo qofka dhibka wada macnaheedu waxa weeye garsoorahaasi kama shaqeyn nabadda kama shaqeyn nabaddana adaa ku nool iyada kuuma noola macnaheedu waxa weeye garsooraha yaa laga rabaa inuu hormariyo tiisa shakhsiga ah tii ilaahay intaan la gaarin ka sokow tuu ku noolaan lahaa inuu isagu ka shaqeeyo oo nabadda lagu aaminay oo ummaddu ay kalsoonida ku siisay inuu u garqaado dadka hor imaanaya qaarna ay dhiban yihiin qaarna ay dulan wadaan oo ay wax dhibayaan nabad la'aan ganacsi iyo dhaqaale iyo maalgashi ma jiri karo haddii intaas aysan jirinna shadee shaqo ma jiri karto horumarna ma jiri karo intaas waxaa asaas u ah nabadda u ah macnaheedu waxa weeye qofka ganacsadaha inuu ka shaqeeyo nabadda ma aha kaliya inuu u daayo amniga ciidamada qalabka sida ama ciidamada amniga qaabilsan inuu daayo isan ahayn uu isagu qayb ka yahay inuu ilaaliyo nabadda ilaaliyo nabad la'aan aqoon ma jiri karto oo quality ama tayo aqoon lama heli karo maxaa yeelay ardaygu wuxuu u baahan yahay iskuul yuu aad u baahan yahay wuxuu u baahan yahay macallin yuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay qalab ayuu u baahan yahay marka haddii aysan nabad jirin quality ma heli karo oo tayaysan ma heli karo marka macnaheedu nabaddu annagaa ku nool nabad la'aan dowlad lama heli karo maxaa yeelay waxaa la rabaa dowladdu in aysan hantida ay dadka ka aruuriso kulli aysan gelin amniga keliya aysan gelin oo ay geliso adeegyada kale oo bulshada oo lagu horumarinayo dalka laakiin wax alla waxay haysato haddii ay geliso amni macnaheedu waxay tahay waxaa la dayacay intii kale oo loo baahnaa dowladdu maalgashi uma yeeri karto oo shisheeye dowlado shisheeye uma yeeri karto macnaheedu waxay tahay ganacsi ma jiri karo dhaqaalaha inuu kor u kacana ma jiri karto intaasoo idinna waxaa aasaas u ah nabaddaa u ah deganaanshaha qofka oo hadda waxaan rahnaa bacdamaa muddo dheer aan ku jirnay xarbul ahal aan ku jirnay haddana dee aan la dagaalayna argagixiso